السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا دمان خيارتا كثيرا برا قبل الشدة ملك السجوكتين وحالنا يا هبين كايدين وعلى سنديه ودن بيه أما بليه ودن بيه مقالة مقدشو وحالة قدسايا ودوين انترلوغا ودوينكس انترلوغا وحاهير قرينايا قندراس لي أما قناعستو كثيرا دقموينكا هوس مع قبل كبنادر ganacsatada ayaga ama qandaraasleydaas waxay u tagayaan maamulka degmada waxa ayna ka soo dhaadhicinayaan in wadooyin interlock la dhiso si gudoomiyaha degmadaas ama gudoomiyaha gobolka Banaadir ba uu uga helo wax credit ama wax qabad oo bulshada u qabtay ganacsatadaas ama qandaraasleydaas waxay u sheegayaan gudoomiyaha degmada ama shacabkaba in wadooyinka laga sameeyo interlock ay yihiin wadooyin durable wadooyin yani waariyo oo qurux badan qaabka ay u sameeyaan marka waxa waaye in meter square lacag ah laga qaado dadka deegaanka مثلا wadada balaceeda hadii uu yahay 20 mitir waxa la sameeyaa labada guri iska soo horjeedo waxa laga qaadayaa guri kasta 10 mitir square yani area-da guriga uu ku fadhiyo ayaa meter square looga qaadayaa meter square marka dadka deegaanka waxa laga qaadaa lacag qiyaastii $20 ah 18 ama 20 lacag yani qiyaasteeda tahay $20 marka kambaniga ay ka soo qaadayaan oo manufacturing sameeyo ee soo saaro interlock ama paving blocks ka waxa laga siiyaa marka waxay ka soo siiyaan lacag $10 marka ay ka soo qaadaan warshada sameeyso interlock ayaa si degdeg ah waxay ku bilaabaan shaqada dhismaha ayadoo wax engineering control aysan jirin shacabka ama bulshada deegaanka maxay u aqbaleen arinta ayada dhowr qodob oo jira oo ayaa dadka looga dhaadhiciyay in laga qaado lacagtaas wadada markii la dhiso waxay u muuqataa wado clean and organized ah yani wada nadiif ah oo habaysan ayay u egtahay qodobka labaad waxa weeye construction is fast yani in si degdeg ah lagu dhisayo oo isla markiiba traffic flow loo fasaxayo wadada inay maraan sidoo kale bulshada waxay markiiba arkaysaa improvement weyn oo ah in wadadiiba hore laga dhisay لكن سلاس ما هن engineering سلاس ما هن لكن engineering هو performance and durability يعني وحس الصحن لو سميه وارتان لوني هاي قضب كلام ربنا بدامي وحواي interlock حقي وكوها بوني هاي interlock وكوها بوني هاي بريستيريان ووكويس كحواي مرشبيت كودوينك يعني ودوينك وين اللي عم يذل الصارو مرشبيت كذي يعني دت كماشي مران أي وكوها بوني هاي waxaa kaloo ku haboon yahay food baths waxa loo yaqaan food baths waxa way wadooyinka dad mareenka ah mesela laba guri dhexdooda wadada luqluqyada yar yarka yani ama compound weyn oo dhisan dhexdiisa wadooyinka laga sameeyo ayaa la yiraahdaa ayuu ku haboon yahay interlock oo yani access to the pedestrian waxa kaloo ku haboon yahay residential compounds yani guriyooyinka caadiga villooyinka oo 20 ka dhisano ama 20 ka dhisano yararka caadiga ah dhexdooda ayuu ku haboon yahay in loo isticmaalo interlock sidoo kale interlock wuxuu ku haboon yahay parking areas meelaha baabuurta lagu baakimo ayadana waa loo isticmaalaa interlock sidoo kale wuxuu ku haboon yahay wadooyinka limited access ka wadooyinka yar yarka 2 mitir iyo bar yani wadooyin ay isticmaalayaan gawaarida light heavy yani culeyskoodu uu yar yahay mooto bajaajto kale mootada ay sheegay ayadana afar lugaaleeda ayaa waxa way gadaal culeyska looga qaado baabuurta yararka ah oo raaxada meel yani wado luuq oo cariiri ah oo yani aan baabuurta waaweyn aysan marinna waa loo sameeyaa waa caadi waa lagu sameyn karaa hadda ugu meesha ayada lafteedana waxay tahay in leeyra la soo dhiso oo si fiican loo soo adkeeyo asaaskiisa qodobka kale oo aan rabo inaan badhaamiyo waxa weeye why interlock fails on main roads interlock muxuu ugu burburaa wadooyinka waaweyn yani muxuu ugu haboonayn wadooyinka waaweyn dhowr qodob oo jira awood looma isticmaalo interlock wadooyinka waaweyn qodobka koowaad waxa weeye heavy action loads waxa la dhahaa baabuurta ama gawaarida candadooda ay weyn tahay yani action waxa la yiraahdaa candada isku xirta shayga isku birta culus ee isku xirta labada taayir ee culayska baabuurka xambaaro kadibna taayirada u gudbisa waxa la action marka baabuurtaas actionkooda ay waaweyn yihiin si samtreelayaasha baabuurta qalabka dhismaha lagu qaado baabuurtaas marista ay maraan awood uu ku burburaa interlock oo kuma haboona qodobka labaad uu san ugu haboonayn waxa weeye repeated traffic cycle
repeated traffic cycle waxaa la yiraahdaa ku noqnoqodka traffiga, yani baabuurta yarkoo raaxada laftooda ama yani baabuurta action loadkooda uusan cuslayn oo kale, oo sida مثلا baabuurta raaxada haddii in badan ay ku laalaabtaanna oo ku burbura iyadana. qodobka saddexaad waa braking and turning forces. braking and turning forces waxaa la yiraahdaa qabashada bareega iyo kala wareega baabuurta. مثلا baabuurta caasiga ama baabuurta raaxada meel kasta waxaa weeye ay ku bataan kala wareegooda ama in badan oo ka mid ah bareega lagu qabto oo ku burbura interlocka. qodobka afraad uusan ugu habboonayn wadooyinka waaweyn interlocka waxaa weeye water inflation. water inflation waxaa la yiraahdaa maadaama uusan lahayn lakab ishaysto uusan lahayn oo wax la isgelgelinaya uu yahay, waxaa sahlan biyaha inay dhex galaan. message-ka ama fariinta aan diray marka waxaa weeye roads are structural system, yani wadooyinku waa structural system, waa system la kabiyo oo isdul saaran oo u baahan design. ma ahan floor tiles, yani wax la iska dhigo oo waxaa weeye la iska boobsiiyo ma ahan. haddii marka wadada loo dooro qalab khaldan in lagu dhiso wadada, waxay bilow u tahayba fail garowga ama burburka wadadaas. muuqaalka kan xigo waxaan kaga hadli doonaa waa maxay sababta loo bilaabayo wadooyinkaas interlocka iyada oo la sameeyay feasibility study iyo design saxan.